waiting list xoog lan ku jirnaa imika casharadii baa socda cashar xisaabay qaadanayaan ardaydu ahlo sahlan iska warrama soo loo fiicno walaal adeero soo ma wanaagsanidin khayr weeye marka waa arkaysaan cashar xisaaba ayay ardaydu qaadanayaan waxbarashadii baa u socotaa class walba imsa arday baa fadhiista galaasku wuxuu ka kooban yahay ilaa 18 ilaa 25 ugu yaraan 18 ugu badnaana 25 galaasyo waa jiraan 30 gaaraya oo aanu baahida darteed aan u geynay laakiin waa ka tashan doonaayo dhismaha cusub markaan bilaawno waa yareyn doonaa waxaan ka dhigi doonaa 25 hadii aan la yiraahdo tiradaas marka ugu haboon ma in class waliba aba noqdo small size baan rabnaa in between 20 to 25 qorshaha iyaga mustaqbalka 1920 ga saas weeye computer classes waxaanu barnaa study island waxaan kaloo haysanaa barnaamij la yiraahdo exact path waxaan leenahay A+ learning waxaan leenahay IXL waxaan leenahay waxa soo supplementa ciyaalka guriga ku haystaan mid kale guri kasta oo ardada waxaan u dhignay computer aan anagu iibinay oo aan u sameeyay password aan ka controlno cunugii gal iyo cunugii aan gelinba marka guri kasta oo arday kasta iskuulkan ka tirsan waxaan dhignay guri kasta computer baan dhignay oo anaga aan iibin iskuulka siiyay halkanina waxa weeye goobta soo dhaweynta iskuulka gabadhana joogto dadka qaabisha magaca walaal waxa la yiraahdaa Bulhaan Cabdishakuur bulhaan marka soo dhaweynta waa halka ugu horeysay dadku yimaadaan miya waa run halkan ay yimaadaan waan caawiyaa haday noqoto waalidiinta haday noqoto ilmaha xanuunsan oo la kaxeynayo waxyaabo isku jiro ilmahana waan celiyaa oo hadii ay ka soo baxaan galaasyada kale ama ay doonayaan inay musqusha aadaan oo kale kind of waxaan u qabtaa inaan gaad amal waan wardiyaa gartay marka waalidiinta iyo iskuulku sidee bay isugu xidhan baad oranay aad bay isugu xiran yihiin wixii su'aal qaba weyna weydiiyaan waxaan u gudbinaa managementka way caawiyaan sida caadada ah Soomaalinimo dhaqankii inagoo naqaano caruurtii wixii aan akhlaaq xumo ku aragno waynu sheegnaa marka alxamdulillah aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal Soomaaliga ma taqaanaa Soomaali waa qaana Soomaaliga aad buu fiicay magaca maasha Cabdisalaam salaam waa isku magac weynne Cabdisalaam baa la yiraahdaa aniga raadeen class ka baatay sideedaad kulligii sida Cabdisalaam oo kala Soomaaliga ma taqaanaa magacaada adigana Saamiya class ka tay Saamiya اي هايا gabadha yar badacaydeena wuxuu yiri dhaqan celis bay u baahan tahay Soomaaliga ma taqaano way adeer aad baa mahadsantiin macallimiinta Soomaalida ee wax ka dhigay iskuulkan waxa kamid ah Axmed Maxamed Sugulle oo Cumar ku magac dheer oo aad iyo aad caan ugu ahaan jiray ciyaarihii gobolka Togdheer Cumar aad baan horta ugu faraxsanahay inaan halkaas ku aragno aad baan ugu faraxsanahay inaan ku aragno waxbarashada xisaabta dhigtaadu iskuulkan maxay kaga duwan tahay baad oran lahayd ugu weyn waxbarashadii wadankii Cabdisalaam waxay kaga duwan tahay halkan waxaanu ku galnaa classka laba macallin macallinka hore iyo macallinka dambe ama macallin caawiye ah halkan aanu joogno waxa lagaga hadlaa Englishna wax waa lagu dhigaa halkan waxa yimaada dadkii ka yimi magaranaysa Soomaaliya oo wali aan language ka la qabsan marka waxaan sameynaa in magaranaysa aan ugu sharxo afkoodii inta ay la qabsanayaan Englishta ay la qabsanayaan markay la qabsadana wali waanu sii caawinaa marka laba macallin oo galaaskooda jiraan كلاسيدا وحو عبد القادر sheegay in ilaa 25 iyo wixii ka hooseeya
aad loo jecel yahay in tirada ardaydu ay noqoto xaggeennina waxa dhici jirtay 60 iyo mararka qaarkood ka badan in ardaydu ay fasal walba ahaan jireen faa'iido inta leeg baa ku jirta in la yareeyo tirada ardayda fasalka dhiganaysa wallahi wax badan baa ku jira macallinku waxa weeyaan assignments buu sameeyaa macallinku marka uu u dhigayo mathka ama englishta wuu dhex maraa marka runtii xaggeennii marka macallinku uu hayo 35 inaanay gacantoodu wada gaadhin oo buuggaaga aanay ishiisu ku dhicin baa laga magaranaysaa way jirtay walaakiin halkan uu macallinku 25 ka arday ama 24 arday buugga hor yaala in ishiisu ku wada dhacdo waxa uu samaynayo ardaygu inuu fahmay iyo halka uu uga baahan yahay in loo sharxo taasaa ma garanaysaa runtii loo yareeyay numberka ardada xagga ciyaarahana ma ka qayb qaadataa maadaama dee sidaan ka warhayo ciyaaraha aad ugu caanahay hayo waan ka qaataa halkan waxaa jira ilaa 6 hoose dhexe ayaa jira mandaydii ina soo dhaaftay iskuul ay ku jiraan ilaa iyo 1,000 arday annaga waxa weeyaan ilaa 400 ama 300 iyo xoogaa bay noqonayaan ilaa 1,000 arday baanu kubad la ciyaaray markaanu kubadda la ciyaaray waxaanu kaga badinay wax aan ku sheegi karay waxaase ugu cajiib badnaa inaan naga mid ah baa kubadda intuu soo qaatay intuu hor dhigay halkii goolkii buu yidhi mid kale dhali halkaanu ka gaadhay cumar aad iyo aad baad umahadsantahay axmed iminkan waxaan la joogaa nin kale oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsigan magaca walaal magacay waxaa la yidhahdaa doctor maxamuud shacali xasan doctor maxamuud waxaa laga sheegay inaad dhigto carabida iyo af soomaaliga soo ma nacam wax jira weeye carabiga soomaaliya dhigaa macallinka ah af soomaaliga la geray oo dee carruurtii waa soomaali laakiin carabida waddankan maraykanka marka la joogo ma muhiim ba aad iyo aad muhiim u yahay waayo ilmaha waxaa loo dhigaa qur'aan baa loo dhigaa diintoodii waxaa laga baraa religionka waxaa laga baraa diintana ma fahmi karaan ama se qur'aanka ma garan karaan haddaysan carabiga haddaysan wax ka baran oo aysan alif ka soo bilaabin ya ku geyn iyo tafaasiirta ay leedahay haddaysan baran oo aan la barin markaas waxaa weeye aad baa carabi dhib u noqonaya markaas dee laakiin taasi waa tii dugsiga lagu soo qaadan jiray qur-aanka qur-aankii iyo higaada iyo markaa tiina idinkaa buuxiye miya si wanaagsan annagaa buuxinay ardada waxay u tegahayaan macallimiinta waxay u tegahayaan iyagoo diyaar ah oo garan kara wax alif yahay wax ba tahay wax ta tahay jumlada xataa yani full sentences ama jumla kaamila waxa ay tahay iyagoo garanhaya carabiga ayagoo qori kara kuna hadli kara macallimiinta u tegahayaan aad baan u fududeynay doctor maxamuud waxaa la sheegaa in ilmaha ku hadla luqadiisa hooyo uu kaga wanaagsan yahay carruurta kale barashada luqadaha kale taa ma la xaqiijiyo ma jirtaa si wanaagsan hadda anaga iskoolkeennan runta waxaa lagu hadlaa 3 luqad lagu hadlaa gaar luqada ingiriiska iyo midda carabiga iyo midda soomaaliga ilmaha la arkaysa u malinahay siday markay soomaaliga ay weydiinaysa ugu hadleen hatta soomaaliga waan soomaaliya hadda dadka yimaad moodaa meeshan ku dhasheen runta ma kila hada soomaaliya inay ku dhasheen meeshan ku dhasheen soomaaliya ka yimaadeen waxaad leedahay siday u qaataan waxa xaqiijinaysa ardaydan halkan ku hayno sida baad xaqiijinaysa si ugu Soomaaliya hadda tagtid iskoolaad kale Soomaaliya joogto ma laga yaabo Soomaaliya sax inay ku sheegaan marka afka ingiriiskana waxa weeye afafka wadankan laga bartay iyo xisaabta iyo maadka iyo wax kastaba ardada ugu fiican way perfect way because afkoodiina way garanayaan hooyo religionkooda afkiisana waa garanaya aad bay u faraxsan yihiin afkalana way garanayaan doctor maxamuud aad iyo aad baad u mahadsantahay aad baan ku salaamay barakallahu fiik jazakumullahu khayr دلم بابي ما أنا هي دراد عايه
dalanbaa bimacaanahay dala dhacaaye shaqadii waa bilaabatay waa bishii koowaad insha Allah waxaan rajaynaynaa muddo 7 bilood gudahooda inuu dhismaha dhamaado waxaan rajaynayaa 25,000 square feet ilaa 10 galaas iyo waxaan rajaynayaa gym weyn iyo meel cafeteria inay ka soo baxdaan rajaynayaa iyo xafiisyadii oo iswata haddii aan la yiraahdo marka qaybtani ay dhammaato iskuulku wuxuu ka koobnaan doonaa dugsigii hoose kii dhexe iyo kii sare laakiin imika waxaa leedihi inuu dugsigii hoose sarena waa leenahay waa qayb xagga jirta wey haya qayb kala jirta may iskuulkana sheegaya iskuulkan wuxuu ka koobnaanayaa galaaska kindergarten to 8th grade qayb kala jirto halka iminka remodel ku socota waa 9 to 12 laakiin waa iskuulka waxbarashada Mareykanku Cabdiqaadirow tii wadankii xagga klaasyada markay noqoto ma isku mid baa mise waa kala duwan yihiin see u qaybsantay waxay u qaybsan tahay halkan waxay xisaabaan kindergarten ilaa 5th grade kindergarten waa xanaanada ilaa 5th grade elementary weeye lixaad toddobaad sideedna waa intermediate weeye saasay u xisaabaan dugsiga dhexe dugsiga sare wuxuu noqonayaa dugsiga sare wuxuu noqonayaa 9 10 11 12 afar galaas buu noqonayaa Cabdiqaadir waxa weeye maamulaha dugsiga Rochester Maths and Science Academy oo ku yaala magaalada Rochester ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka dugsigan oo ay aasaaseen rag Cabdiqaadir uu ka mid yahay oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Rochester dugsigan ilaa dhowr boqol oo carruur ah oo Soomaaliya imika dhigata booqashadayadii maanta iskuulkuna intaasay ku dhan tahay ee nabadgelyo aad iyo aad baad u mahadsantay dalanbaa bimacaanahay dala dhacaaye dalanbaa bimacaanahay dala dhacaaye waxaanu imika ku sugannahay bartamaha magaalada Rochester oo dhinaca koonfurta ka xigta magaalada Minneapolis gobolkan Soomaalidu ay caan ugu yihiin ayaa magaalada Rochesterna gaar ahaan muddo ka badan 20 sanadood Soomaalidu imika ay deganaayeen gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Rochester waa Cumar Yuusuf Nuur Cumar Soomaalida ugu horeysay goorma magaalada soo degeen marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa Cabdisalaan Harari fursaddan maanta aad noogu timideen magaalada Rochester sidaan ku hayno warka aniga waxaan joogaa 20 sano laakiin dadkii iga soo horeeyay waxay yimaadeen 1995 so marka waxay joogaan 22 sano runtii markii hore ay soo degayeen halkan way ku cusbaayeen wayna ku yaraayeen soo dhaweyn wanaagsan maysan helin madowga magaalada aad buu ugu yaraa laakiin sanad badan kadib waa la qabsaday dadkuna ay ku soo bateen markaad adigu timid Soomaali intee lag baad ugu timid wallahi markaan imaanay adiga kun qoys ay maraya deganeed waxay 1999 ilaa kun qoys ayaa deganeed xilligaasna waa xilli aad u fiican oo xilligii la dhan jiray Clinton time hay'ad weyn oo adduunka laga yaqaan oo IBM ayaa aad u shidneed shaqo fiican laga helayay iyo isbitaalkana maayo naftiisu asna aad magac ugu lahaa wadanka Mareykanka marka wagaas ilaa inta ka badan waa la soo badanayay war taqaan dhaqanka Soomaalida Minnesota aad baa loogu soo guuraa marka waxaan loogu xishaa tirahan Soomaalida imika intee degan wallahi hadda markaan shirka tagay inkastoo tira koob dhaba lahaynin oo mar boqol noo soo guurto inta naga guurtana ay yar tahay ilaa 8,500 lagu qiyaasaa Soomaalida meesha degan marka magaalooyinka kale idinku dhow ee Soomaalidu ay degan yihiin gobolkan kamida waa kuwee waxaan ugu dhow magaalooyinka la isku yiraahdo Twin City-ga oo hadda aad loogu badan yahay waxaa kaloo magaalo yar oo noo dhow jirto adna Farbor yiraahdo ayadana xogaa noo jirta kulley waxaanu nahay degmo ahaan loo fiiriyo magaalada saddexaad ugu weyn gobolka Minnesota marka Soomaalidu waxay idinkaga badan yihiin Minneapolis iyo St. Paul labaas waxa la isku yiraahdaa magaalada mataanaha la isku yiraahdaa halkaas inooga badan yihiin waxaad sheegtay sharikada weyn ee caanka ee IBM in waqtiga hore shaqooyin fara badan laga heli jiray imika dadka Soomaalida bal hadda noloshooda ka waran maxay qabtaan maxay ka shaqeeyaan xilligaas horta waxay ahayd IBM ta ayaa aad looga shaqeyn jiray marka waxay sameeyeen waxa loo yaqaan outsourcing oo dad badan ay company wuxuu guuray inta badan China iyo Mexico si labor loo helo shaqaale jaban laakiin hadda xilligan waxa loo badan yahay
isbitaalka hadda ugu weyn ee magaaladan ku yaallada Mayo Clinic waxaana si wanaaga dhalinyaradii soo gashay xilligaas 93 95 ilaa hadda inay dhaqaatiir noqdeen qaarkood oo magaaladan wax ku bartay neer fara badan oo ka shaqeeyaan professional fara badan oo ku shaqeeyaan tirakoob dhaba ma hayno laakiin dhowr boqol oo Soomaali ah ayaa ka shaqeeyay waa meesha kaliya lagu tiirsan yahay magaca Soomaaliya Umar markaa dhismayaashan imika inaga dambeeya iyo inta muuqataaba waa isbitaalka miya waa isbitaalka waa isbitaalka ugu ballaaran dalka Mareykanka waa isbitaal nooc kasta leh taariikh dheer ayuu leeyahay waxaa la aasaasay 1890kii waxaa aasaasay laba nin oo walaalaha 1890 ayaa la aasaasay marka 100 sanadood ka badan buu jiray ayuu jiraa laba nin oo walaalaha iyo ilmo Maayl yiraahdo aasaasay Dr. William iyo nin kale inta oo walaalkii ahaa waa non profit isbitaalka arkaysid wax kastoo ka soo baxana talagelin in lagu macaasho wax allaala wixii ka soo baxana asaga lagu sii ballaariyaa hadda bilka aad arkaysid waa qaybta kansarka 12 dabaq ayuu hoos u sii jiraa dhulka muxuu markaa kaga duwan yahay isbitaalada kale ee dalka Mareykanka ku yaalla waaweyn wuxuu kaga duwan yahay waa isbitaal aan ganacsi ahayn dad waxa haayo la yiraahdo wax loo doorto had iyo jeer nin director ah boorka ayaa maamula dhaqaalahana dib isaga ayaa loogu celiyaa waana isbitaalka wuxuu ku leeyahay faracyo magaalada gobolka Leeyahay Florida iyo Arizona tirada guud ee ka shaqeeya shaqaalaha Mayo maanta waxay marayaan 63,000 oo shaqaale ah waxaad sheegtay in Soomaali fara badan ay ka shaqeeyaan oo qaarkood dhakhaatiir baa yihiin talow tirada dhakhaatiirta Soomaalidu intee noqonaysaa Umar ay tiro koob ma laakiin la intaan hadda qaan ilaa 10 dhakhtar oo ka shaqeeysa qaar waxa jira ayagana Canadian oo citizen wata oo ayagana Canada ka yimid wili aan haynin magaaladu isbitaalka aad u ballaaran yahay oo meel lagu tiro koobi kara ma marka waxa jira dhakhaatiir fara badan oo mujtamaca muslimiinta u badan sida Masaarida Suuriyaanka Iraaqiyiinta Qaliiska waayo isbitaalkan waxa yimaada oo aad iyo aad customer ah kalayn oo ah wadamada Qaliiska marka dhakhaatiirta ka soo koob Soomaali kaloo iyana ka shaqeysaa jirto wax walba qabata Soomaali Soomaali waxa ka shaqeeyaan nurse jiro waxa jira laboratory technician jiro waxa jira shaqada hoose ilaa shaqada u sareeyo way Soomaalida isbitaalka marka laga tago qofka Soomaaliga halkan degan Rochester waan filayaa inay qoysas u badan yihiin dadka degani maxay ku doortaan xagga nolosha magaalada waxa lagu doortaa inta ugu muhiimsan waxay tahay ayadoo benefit badan leh isbitaalka laga helayo oo tii Ilaahay meel ay taala geerida laakiin qofkii halkan ku nool ama isbitaalkan aad wuxuu aaminsan yahay inuu helay isbitaal ugu magac dheer adduunka oo taas ayaa macnaha suurta gelinayso waa magaalo degan waa magaalo karaamkeedu uu yar yahay waa magaalada bulshada loo yaqaan Black African American oo ku yar yahay waa magaalo dhowr 19 sano isku xigtay ay waxay qaadeen magaalooyinka ugu yar adduunka ee ugu number 1 ka xagga nabadgelyada xagga dhaqaalaha xagga horumarka xagga nadaafadda marka waa magaalada soo jiidanaysa muslimka oo dhan Umar marka la isku qaado Soomaali baa u badan Soomaali Soomaali u badan ha tirkoobkoodan waxaan la ku yiraahdaa ilaa 12 kuway muslimiinta kale ee halkan idin kula nool xagee ka yimaadeen iyaguna waxa horta u badan niman la yiraahdo Bosnian niman kale marka inta kale waxa u badan Iraq iyo Suuriyan hadda noo yimid iyo dhaqaatiir professional ah oo Masaari ah ama Kuweydiyiin ah ama Suuriyiin ah qolinkaas u badan Suudaan tan wayna la joogan ayagana laakiin majority marka la yiraahdo immigrants anaga u badan populationka muslimiinta anaga u badan marka tirahan marka la isku wada qaado dadka ku nool magaaladan Rochester imisay noqonayaan iyagu magaaladan way markaan soo degaynay waxay ahayd 70,000 waxa kamid ah dadkii ugu horeeyay barnaamijka census oo tirakoobka ka qayb galay sanadkii 2000kii hadda laakiin waxay noqonayaan waxa kale ugu qaataa 150,000 inay gaarayso aad u koro haysaa aad u ballaaran haysaa businessyada oo jeedaan iyo bilyan laga soo hayo barnaamijkan way soo wadaan oo la yiraahdo intaas bilyan ku kacayso la yiraahdo DMC oo la isku xiri doono Twin City ayaga oo tareen ka shaqeyn doono Umar aad iyo aad baad u mahadsantahay aad baan ka mahadcelinayaa Umar waxa weeye gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Rochester magaaladan oo taariikh dheer sida Umar uu ka waramayay Soomaalidu ku leeyihiin imikana ay xoog uga muuqdaan dadka ku nool magaaladan oo ay yihiin jaaliyadda ugu faraha badan leh sida Umar uu inoo sheegayay iyagu ku dhaqan magaaladan Rochester aad iyo aad baad u mahadsantahay Umar aad baan mahadsantahay Kala
آتيو كل قادي بالنهار دليقان ما تهايو دقمدي فوق آتيو ماشي لو أقدرو دور ما قرأتها